بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaa kusoo kala jirnay Excel Schools waxaynu maraynay remark oo aan maanta qaadan doono waa qaybta saddexaad oo kamid ah Excel Schoolska remark waxa hore soo qaadanay total iyo average marka remarkiya wuxuu ku saabsan yahay horta in la sheego qofkani in uu ku baasay oo intii laga rabo maadooyinka uu keenay iyo inuu ku dhacay baasad iyo failed ayuu ka sheekeynaya wuxuuna ku si kala hadii loo fiiriyo waxa way kala bar wax ka yar moo keenay 50% wax ka yar moo keenay qofka mas wax ka badan ayuu keenay wax ka badan 50% waxa way baasad wixii ka yarna waa failed marka tusaale ahaan qofkan oo kale hadda totalku wuxuu keenay 260 average ahaan marka loo fiiriyo 65 way hadda 50% kan way ka badan tahay kanna 80% 73 marka kuwaas ayaa loo fiirinayaa remarkii ku tacalluqa marka formuladiisa xoogaa kuwii hore way ka dheertahay kuwii hore aad ay simple u hayeen totalka iyo average-ka marka remarkii fiirin marka wuxuu ku bilaabanayaa sidan equal ayaa leedahay if oo tan ah kadib waxa dhaysaa average-ka midkee ayaa qofku ugu horeeyo kala ku bilaabana example-ka average qofkan 65 ayaad ku dhufanaysaa h4 ayuu noqonayaa h4 kaas wixii ka badan 50% tusaale ahaan qofkaas inaa u qorno 50% comma ayaa leenahay calaamadda quotation mark ayaa furaysaa quotation mark oo labada xariiqin ah calaamadda xigashada qofkaas marka haduu wax ka badan h4 kan oo 65 ku taalo wax ka badan hadii ku taalo 50 qofkaas waxa u soo qoraa leenahay baasad inuu ku baasay imtixaanka hadana quotation mark ayaa xirina comma ayaa leenahay mar labaad qofka haduu ka waran waxaas 50% ka yar uu keeno waxa leenahay qofkaasna waxa u qorayna sidaan if ayaa leedahay h4 ayadii h4 oo ku dhufsata h4 oo ku dhufanaysa less than ayaa leedahay kan u adeegsanaysa less than or equal marka dhahdid less than or equal wixii la eg ama ka yar 49 qofkaas 49 wixii ka yar waxa leedahay comma waxa u soo qortaa quotation mark for failed u soo qor quotation mark here quotation mark soo xir shifty quotation mark waa kaasa marka waxa dhahnay if hadii h4 kan percentage kan uu ka badan yahay 50 waxa uu soo qortaa baasad if hadii h4 kan percentage kan uu ka badan yahay ama la eg yahay 49 qofkaas 49 haduu keeno oo 49 laftirkeeda haduu keeno xataa qofkaas failed ayaa soo bixaysa 49 ka yar sana 45 iyo 30 20 10 waxaas dhan wuxuu qof failed u soo qoraa tanna 50 aan waxa macna 65 80 70 90 ilaa 100 qofka haduu keeno wuxuu soo qorayaa baasad marka meeshan wili formula ma dhamaan waxa furtay laba if ayaa furtay if kood if labaad waxa xiraysa marka bracket markuu hal mar ayaa furtay markuu ugu dambeeyo waxa xiraysa laba mar sabab waxa waa macna if laba if ayaa soo sheegtay waa inaa xirtid marka laba mar waa inaa xirtid bracketka laba mar ayaa xiraysa intaas waxa dhaysaa enter waa kaas qofka koowaad waxa u soo baxday baasad maxaa yeelay percentage-kiisu 65 way shardiga ku xirna wuxuu ahaa in 50% wixii ka badan uu soo saaro baasad wala mar labaad ku celiyo waxa dhaysaa equal if midaan ayaa ku dhufanaysa average-ka haduu greater than 50 comma quotation mark baasad quotation mark soo xir comma hadana if labaad fur waa kana if labaad marka furtid average kan less than or equal
49 waxaa dhahdaa comma quotation mark valid soo qor valid waa quotation mark soo xir kadib laba mar bracket ka yar shift 0 kabacdi enter dheh waa kaasa marka waxa ku soo baxay passed dadka kale waa ku jiiday kaliya waa kaasa marka qofka koowaad oo ah Axmed Xasan uu baasay imtixaanka Anab Jaamac uu baastay Faarax Cabdullaahi uu baasay Ali Cusmaan uu baasay Khadiija laakiin waxa uu soo baxday failed sabab 46 ayay wadataa meesha anagana awal waxa sheegnay wixii 49 ama 49 ka yar inuu yahay failed marka waxa dhici karto in marka labaad da sameeyno waxa dhici karto in iskoolku uu leeyahay qormaal kale inay go'aansadaan in wixii ka yar 50 ama 49 wixii ka yar inay go'aansadaan in re-exam uu leeyahay iskoolka oo kale to re-exam waxa la sameeynaa markaas sana re-examku waxa la bedelaa intaan hore waa caadi wixii 50% oo kale to wixii ka weyn passed way laakiin wixii 49% failed meesha in loo soo qoro re-exam oo kale ayaa la bedelaa kaliya shifti re-exam soo qoro ayaa leenahay enter dheh inta ayaa ku jiidaysaa waa kaas way isbedelaysaa meesha passed passed waa sideedii maxaa yeelay 50% wixii ka mid passed laakiin meesha oo 49 tan oo 49 meesha qofka 46 ka yar re-exam ayaa u furan inuu galo kadib si uu u baaso waa kaas meeshaas kaliya ayaa re-exam failed qofka waxay ku xirtaa iskoolka ama 70% in lagu dhacayo kale in dhici kartaa jirto 70% wixii ka hooseeyo in lagu dhaco iyo 70% wixii ka koray passed tahay markaas hadaa sameeyna taasna meelaha yar kale bedelay bis passed iyo failed inuu leeyahay failed wixii ka yar 69 hadaan oo kale tusaalaan 69 ama jaamacad haduu yahay 70% hadii lagu baasayo 69 wixii ka yarna failed tahay oo lagu dhacayo oo 69 enter marka hadda maxaa soo baxayo way isbedelay fiiri qof labaad ayaa dhacay doono qof labaadkan waxa ay ardaygan Axmed Xasan maadaama uu 65 keenay failed oo soo baxay 69 wixii ka yar ayaa failed dhaxay 80 uu baasaya 73 uu baasaya 90 passed failed 46 waa ma sidii soo dhawaada